السلام عليكم أصحابتي قالك دمانتين kusoo dhawaada cooking saacada dhammaantiga cusubtiin kusoo dhawaada family subscribe sar kambalelkan furo video walbaan soo gelisay dhaqsi ku soo gaaran soo asxaabteeda qaaliga maanta xidin sameynaya cafur aad u macaan badan oo bish ramadaankeeda aan ficdoona baradho aad u macaan badan cabitaan aad u nafaqaysan dhammaantiin ka faa'iidi doontiin oo waxyaabo aad u fudud aan ka sameynaa insha Allah bish ramadaankan alaabtan cafur ahaan aad idin ficdoona marka ka faa'iideysta sidaan u sameynaa asxaabta maantiga cusub ku soo dhawaada channelka cooking saacad channel labaad ayaan leeyahay oo qurxinta daabli arkin magaciisa waa kay ku soo dhawaada linkiisa waxaan soo gelinaa videogan haddaan soo gelinaa comment ka dhexdeeda linkiga pinaa saaraya linkaas markaa raacid maxay ku geenaa channelka qurxinta sidaas u soo boo kartaa subscribe ayaa saari kartaa soo markaad xidin sidaan u sameeyeen maanta alaabtan cafurkan ugu talgalay sidaas la socdo dhamaantina daawasho wacan daawadaan dabka saaray kadibna waxa yar saliid aan ku shubay and then basal si yar أنا أصور جرجر أيام كده حضرة كدبنا دحيان سمينا سليدة سيان كده حشيلة بس الشاسيتي عندنا وحياة كلام كدر دون عيني تسنا مركز دحيان كدر سنة هالحبتون أنسي يريران أصور جرجرتون كما هو اللي ما نسوي شيء دين جسوا أصور جرجرة يريري سيان كده كدب بدل هذا الشيء أنس كده حشيلة كدبنا وحياة كلام كدر دون عيني تسنا مركز دحيان كشبايا هلي وشيشيد واي مركز هلي وشيشيد كاسيان كده حضرة ماشي عندنا وحيريس ولا وحياة به هلي بكيانس كدر marka hilibka waxaan sugaa inta biyaha dhan oo ka saarmo because hilib shishiidka biyo ayuu dhalay marka dabka la saaro marka waxa loo baahan inaad sugtid hilibka si fiican oo bislaada intuu biyaha dhan ka saarmo markuu qaleel noqdana waxyaabaha kale aan ku dari doono arki doontiin marka hilibkeen markuu sidaas qaleel noqdo waxaan ku darsanayaa barbarooni si yar aan u soo jarjaray ayaan ku daray and then waxaan ku darsanayaa yaanyo si yar aan u soo jaray yaanyaha munjiga dhexda ku jiro waan ka saaray just yaanyada kor inta ayaan si fiican u jarjaray kadib ayaan ku daray marka waxaan sameynayaa intaas waxyaabo ayaan isku dhex shiilay hadda waxaan ku darsanayaa wax yar oo cusbo qiyaastada ku darso and then waxaan ku darsanayaa wax yar oo filfil madow ka mid ka shiidan ayaan ku daray wax yar oo xawaaji ayaan isku dardaray guriga laga sameeyo videogiisa channelka uu ku jiro xawaajiyaasha guriga sida looga sameeyo marka videoga channelka ka fiirso xawaajiga sidaan u sameeyay marka intaas waxyaabo dhan markaan isku dhex shiilay soo hadda hilibkeeni sidaas markuu noqdo waxaan ku darsanayaa hal qaado oo yaay shishiid ayaan ku darayaa yaay shishiidka zaaid in loo badiyo mal rabo marka hal qaado yaay shishiid ayaan ku daray kadibna si fiican aan isku dhex qasayaa waxyaabay dhan aan isku dardaray marka asxaabta waa aragteen hilibka sidaas ayaan u sameeyay and then marka yaay shishiidka marka aan ku darsado waxaan ku darsanayaa zeytuunka midka diyaarka ee olives oo dhalaha ku imaado oo biisada la kor saarto kaas ayaan ku darayaa asigoo oo jajaran waa jaray marka kaas ayaan ku daray laazimaha zeytuunka daahilisid ku darsaa daahileenin laazimaha waa iska dhaafi kartaa marka intaas waxyaabo markaan isku daray hilibkeeni iyo waxyaabihii dhan khudaartaan isku daray diyaar waaye marka waxaan sameynayaa hadda stoofka ayaan ka saaraya waan sii daminaa waan sii qaboojinaa meel ayaan dhigaa inta waxyaabaha kale aan ka diyaarsanayo marka hilibkeeni diyaar waaye kadib waxaan idin tusinayaa sida kale iyo waxyaabaha kale aan sameyn doono marka hadda hilibka gees ayaan iska dhigayaa soo hadda waxaan sameeyay baradho ayaan dabka saaray kadibna biyo ayaan ku shubay baradhaas waxaan sameynaa waan karinayaa biyahaas ayaan ku karinayaa markuu baradheen noo bislaadana qaybtii kale sidaan u sameynaa ayaan tusinayaa marka waxaan sameynaa baradhahaas si fiican bisaal ugu dhig baradha ceerin mal rabo zaaid inuu bisaal noqdo ayaa loo baahan waa aragteen mindiga markaas sidaas aan u galiyay sidaas ayuu siibmayaa marka sidaas ayaa la rabaa baradhaha markuu bislaado sidaas ayuu noqonayaa soo hadda baradhaheenii diyaar waa marka waa soo nadiifiyay kadibna baaquligaas ayaan ku shubay waxaan sameynaa birtaas ayaan ku jajabinaa baradhaha dhan si fiican u jajabi baradhaha daqiiq ayaa la rabaa inaad ka dhigtid hadaa birta haysid ku jajabi hadaa rabtid gacmaha ayaa u isticmaali kartaa waxay adiga haysid aad ku jajabi kartaa hadaa rabtidna geedka tuunka lagu hoosho hadaa haysid kaas aad ku hooli kartaa marka baradhaheenii diyaar waa aragteen soo hadda waxaan ku darsanayaa wax yar oo cusbo ayaan ku daraa cusbana qiyaasina ku darsan intii adiga afkiina qaadaysa ayaa ku xiran cusbada and then wax yar oo xawaaji isku dardaray guriga aan ka sameeyay ayaan ku daray wax yar oo filfil madow ayaan ku darayaa oo la soo shiiday just fariisul qiyaastiisa kadibna fariisul qiyaastiisa waxaan ku daraa basbaaska gaduudka chili flakes oo la soo jajabiyay and then kabsar caleen oo si yar aan soo jarjaray ayaan ku daray marka intaas waxyaabo markaan isku daro hadda waxaan ku darsanayaa caano ayaan ku darayaa caanahan isticmaala waa caanaha midka looda laga sameeyo caadiga oo la cabo kaas ayaan ku darsadaa caano midka looda laga sameeyo haystin
okay waa haddaa haysanin waxaad sameynaysaa wax yar caano booro hadaa ku yaalo biyo qandac ku qas kadibna waa u isticmaali kartaa. So hadda waxaan sameynayaa gacmaha ayaan u isticmaala hadda waa aragtin si fiican ayaan isku keenaa baradhaha waan jajabiyey marka sidaas ayaa la rabaa inuu daqiiq sidaas ahaado baradhaha. Marka baradhahani diyaar waa kadib hadda waxaan sameynaa wax yar oo saliid ayaan soo qaaday gacmaha ayaan marinaya and then baradhihii aan soo diyaariyey wax yar oo kuusii qiyaasi ayaan qaadadaas kusoo jaray kadibna gacmaha ayaan saaray. Gacmahaaga always saliid mari markaa baradhaha sameynaysid because baradhaha haddaa gacmaha saliid marina way kugu dhegdhegaysaa markaa fuqaayo baradhaha. Marka waxaa loo baahan yahay gacmahaaga wax yar saliid marisid si yacni markaa kuuseysid dhaqsi kuu koosmay gacmahana kugu dhegdhegin baradhaha smooth liish inuu kuu noqdo ayaa loo baahan yahay. Marka sidaas ayaa sameynaysaa wax yar saliid gacmaha mari kadibna kuus yar ayaa soo goonaysaa and then gacmaha sidaas ugu wareeji ilaa wareeg oo liisho ka noqdo. soo waa aragteen asxaabta kuuskaas qiyaastaas ayaan ka dhigay sidaas ayaa la rabaa zaa'id weyn oo uga dhigin zaa'idna yara ka dhigin dhexdhexaad ka dhig. Marka laba xabo marka aan ku sameeyay gacmaha saliid aan mariyay xabadii saddexaadna waa aragteen marka la saliid ayaan gacmaha mariyay si ay uga dhigin dhaqsi ayuu kaa fuqaaya marka gacmaha saliid marisid. laakiin hadoo saliid marinin gacmahaaga hadaa ku kuusid gacmaha ayaa kugu dhegdhegaa baradhadan sticky makaa fuqaayo marka saas ma la rabo. soo asxaabta waa aragteen xabadii saddexaadna sidaas ayaan u sameeyey kuli sidaas ayaan u sameynaya kadibna aan isku sii laabanayna marba videogan aan igu dheereeyo marka sidaas la socda. soo asxaabta kuli waan soo sameeyay waan diyaariyay xabadii ugu dambeysay xabadaas ay ahayd waan soo diyaariyay kuli hal xabir ayaan ka dhigay hal kuus sidaas ayaa la rabaa zaa'id u yaryareynin zaa'idna weyneynin dhexdhexaadkaas ka dhig. Marka waxaan soo qaaday hilib shiishiidkii aan soo diyaariyay aan soo karinaynay marka waxaan sameynayaa again gacmaha wax yar saliid ayaan marinaya kadibna baradhaha hal xab ayaan soo qaadaya gacmaha ayaa sidaas u saaray and then dhexdaas ayaan sidaas seetay aan ku sameeyna nafas yar oo qiyaas qurux badan ayaan ka dhigayaa sida baaquli oo kale wax yar nafas ayaa loo baahan yahay dhexdaas inaad sameysid marka zaa'id weyn oo uga dhigin zaa'idna qiyar ka dhigin just dhexdhexaad sida aniga aan sameynay sidaas aad sameynaysin kadibna insha Allah waa arki doontiin sida kale aan sameynaa maanta xafraad sahlan oo aad macaan badan waa very healthy waxaan rajeynayaa idinkan inaad baroway doontiin this quick recipe hadaa ka heshin insha Allah videogan maanta xafrka sidaan sameynaa marka videogan like saar si share gareysii walaalaaga asxaabtaada warkaan ka faa'iidaan asxaabta maanta igu cusubna welcome family subscribe ka dhinaciisa gambaleel yaraysa ay ku yaala gambaleelkaas furo mar wal videoan soo galeysay dhaqsiinay soo gaaran marka asxaabta aragteen sheeb qurux badan ayaan u sameeyay dhexdan wax yar nafas ayaan ka dhigay soo sidaas ayaa la rabaa wax yar meel god ah oo kale u sameynaysaa kadibna kor waxaad sameynaysaa wax yar liish ayaad ka dhigaysaa afka hore kor kadibna baradhaha sidaas ay diyaar u noqdeen marka 2 ilaa 3 xabo ilaa 4 xabo ayaa idin tusinaya kadibna kuli markaan soo sameeyo ayaan isku sii laabanayna insha Allah. soo asxaabta xabadii ugu dambeysay ayaan diyaarinaya kuli waa aragteen sidaas ayaan u sameeyay gacmahana wax yar ayaan saliid mariyay marka asxaabta markaa 1 ama 2 ama 3 markaa sameysid wax yar gacmaha dan saliid marisi ay kugu dhigin baradhaha kadibna sidaan ayuu ku naqanayaa laakiin hadaa gacmahaaga saliid marinin oo just sidaas ugu sameysid baradhahana way kugu dhegdhegaysaa marka adigoo wixii soo diyaaris gacmahana makaa fuqaayo and then waa ka halaaba mar labaad inaad sameysid ayuu naqanaa marka sidaas ma loo baahan just gacmaha wax yar saliid iska marisi ee dhaqsi ay kaaga fuqaan baradhaha. soo asxaabta aragteen kuli sidaas ayaan u diyaariyay nafaskaas dhexdiisii sidaas ayaa la rabaa inaad ka dhigtid marka hadda baradhaha kuli waan soo diyaariyay hadda waxaan sameynayaa marka wax yar waxaan soo qaadaa hilibkii shiishiidka aan soo kariyay kadibna dhexdiisa sidaas ayaan ugu shubayaa marka sidaas ayaa loo baahan yahay just nafas qurux badan u sameey dhexda si hilibka marka dhexdaad ku shubeysid nafaskiisa inuu lahaado oo si fiican u gala hilibkaas marka hadda waa kay kuli sidaas ayaan ugu shubayaa hilib shiishiidka dhan kadibna waa arki doontiin insha Allah. marka asxaabta sidaas ayaan ku wadaa hilibka kuli waxaan ku dhex shubayaa baradhaha dhexdeeda kadibna markaan soo dhameeyay ayaa idin tusi doonaa marka hadda waan sii dhameynaya kadibna insha Allah isku sii laaban doonaa.
soo asxaabteeda qaaliga waa aragteen kule hilib shiishiidka sidaas ayaan ugu shubay marka diyaar waaye sidaas ayaa la rabaa inaad ka dhigtid kule nidaamkaaseeti markaad waxaa idin tusinayaa waxyaabaha aan kor saari doono markaad waxayaan kor saarayaa hilibka marka baradhaheen sidaas ayaan u diyaariyay hilibkana waan ku dhex shubay markaad waxayaa loo baahan yahay korkiisa waxayaan ku shubaa wax yariis oo farmaajo ama jibna sidaa u taqaantiin marka farmaajaha waxa waaye midka oo mozzarella cheese aan isticmaalaya oo biizada la kor saarto ay farmaajo adiga haystid ayaa kor saari kartaa marka waxay adiga jeceshid farmaajo ee kor saaro aniga noocan isticmaalayo farmaajaha mozzarella cheese waaye soo wax yariis kor ayaan sidaas ugu sharxaya soo asxaabteeda qaaliga waan soo laabtay marka baradhaheen diyaar waa farmaajada kor ayaan ka saar waa aragteen waxyaabaha dhan waan kor saaray marka meeshan waxaa igu jira hal qaado yaanyo shiishiid waaye yaanyada shiishiidka wax badan ma loo baahan jis hal qaado ayaa loo baahan yahay kadibna waxayaan ku darsanaa wax yaro biyo ee biyahani marka aan ku daro si fiican aan u qasaa yaanyo shiishiidka and then had waxayaan sameynaya baradhii aan soo diyaariyay waxyaabaha dhan aan kor saaray ayaan ku shubayaa baradhaha kor mal rabo inaan ku shubtid jis hoos ayaad dhigaysaa kadibna sidaas ayaad ugu shubaysaa jis waxayaa loo baahan yahay shiishiidka inuu hoos ku karo kor ku shubin baradhaha korkiisii marka waa aragteen asxaabteen shiishiidka dhan sidaas ayaan ugu shubay kadibna si fiican u tutoosi saxanka qayb walba inuu gaaro ayaa loo baahan yahay shiishiidka waa idin tusinaya sidaan sameynayo sidaas ayaa la rabaa markaad waa aragteen sidaas ayaan diyaariyay markayaan shiishiidkana gees walba ayaan gaarsiinaya jis kor ma loo baahan inaad ku shubtid hoos ayaa loo baahan yahay shiishiidkana dhigtid hadda waxayaan sameynaya marka diyaar waaye foornaha ayaa ii daaran 180 ayaan ku dabayaa 30 ilaa 35 daqiiqo ayaan gelinaya foornada ayaan ku dabayaa kadibna waa arki doontiin sidoo noqonaya I hope dhamaantiin ka faa'iiday recipe-gan oo cafurka maanta aad u saalsan caafimaad kale waa cafur aad u macaan badan adinkan insha Allah barowaya asxaabta wax saliidii waxaas rabin sidaan ay u diyaarsan kartiin marka soo asxaabteeda qaaliga marka baradhayna sidaas ayaan u diyaari waa aragtan baradh aad u macaan badan waa dhamaantiin aad ka faa'iiday doontiin markaas sameeysiin waa arki doontiin sidoo u dhadhamaayo marka waxaan rajeynayaa dhamaantiin inaad ka faa'iideen video-ga baradhada sidaan u sameeyay soo dhaxidin sinay sidaan u sameeysanaa cabitaanka marka cabitaankan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday doontiin waa laba shay bish Ramadaanka sameeysan kartiin cafur ahaan oo waliba aad u macaan badan oo familka dhan ka heli doona marka sidaan u sameeynaa cabitaanka idin sinaa sidaas la socdo qaaliga shayga horaan u baahnaa cabitaanka maanta ka sameeyneen waxa waaye cambaruudkan sidaas ayuu egyahay inta asxaab aqaanin sidaas ayuu egyahay soo kaas ayaan u baahanahay cabitaanka aan ka sameysanayn iyo waxyaabo kale ayaan ku dareynaa marka cabitaanka cambaruudka laga sameeyo asxaabta zaaid ayuu u macaan badan yahay marka cabitaanka maanta aan sameynaa hadaa weli noocan aad sameysanin noocan hal maalin sameysa bisha Ramadaanka insha Allah waad arki doontaa adinka sidoo u dhadhamaayo yani cabitaan aad u macaan badan oo marka la shiido waxaad u malaynaysaa cabitaanka oo diyaarka boxi ku imaado sidaas oo kale ayuu ku noqonayaa soo marka waxaan rajeynayaa dhamaantiin inaad ka faa'iiday doontiin cabitaankan marka waan sii jarjarayaa markaan soo jarjaro kadibna waxyaabaha kale aan ku darsanay iyo sida kale aan u sameynayna idin sinaya marka sidaas la socdo asxaabta hadda waan soo jarjaray cambaruudkeeni diyaar waay kadib hadda waxaan ku darsanaa orange ayaan ku daraa liinta orange-ga kaas ayaad u baahanaysaa 3 ilaa 2 xabo ayaad ku darsan kartaa soo marka hadda waxaan sameynayaa orange-kaasi ayaan jarjarayaa kadibna meeshaasi saxankaasi oo cambaruudka ku jiro ayaan ku dhex darayaa and then waxyaabaha kale aan ku daraa idin sirayaa xabta orange-ka markaan ku daray kadib hadda waxaan ku darsanayaa cananaas ayaan ku darayaa cananaaskaasiti 2 xabo ayaan ku darsanaa oo sidaas loo jarjaro cananaasi soo marka cananaasigaas markaan ku daro kadibna sida kale aan sameynaa idin sinaya
diyaar waa asxaabteeda qaaligeeda kulli waan soo jarjaray fruutkii dhan aan ku dhex shiidaa cabitaanka kadib waxaan sameynaa marka jaaga aan ku shiidayo ayaan ku dhex shubayaa marka aan ku shubo fruutka dhan jaaga dhexdeeda aad waxaan ku darsanayaa sukar ayaan ku darayaa marka sukarta qiyaasteeda ayaa ku darsan kartaa sukartana qiyaasteena ku darsada aniga qiyaasteeda ayaan ku darsaday marka sukartaas ayaan ku daraa halkaas qaad qiyaas ayaan ku darsanaa sukar badan ma jecli soo intaas enough waaye hadaan ku daro macaankiisa masha Allah ayuu noqonayaa kadibna waxaan ku daraa biyahana qiyaasta aan ku darsanaya 5 bakeer qiyaastiisa biyo ayaan ku shiidaa jaagaas inta igu jiro 5 bakeer qiyaastiisa biyo waaye marka intaas ayaan ku shiidaa cabitaanka soo marka cabitaanka darabtid wax badan fruutka aad u badinaysaa darabtidna qiyaasina ka dhigtidna sidaan u sameeysanaysaa hadda waan sii shiidaya daqiiq ayaan ka dhigaya si fiican u shiid camburuudka waxay waqti ayuu qaadanaya marka si fiican marka u shiididna hadhow waxay noqonaa cabitaanka dhan si fiican isku dhex galayaan sidaas ayaa la rabaa markaan soo shiido kadibna idin tusinaya diyaar waa asxaabta cabitaankeen hadda waan soo shiiday kadibna waxaan sameynaa waan miirayaa qasab waa inaa miirtid sidaas ma ka cabi kartid cabitaanka marka waxyaabahaas dhan aad isku dardartay inaa miirtid ayaa loo baahan yahay cabitaan oo maasha Allah oo fresh aad cabaysaa oo aad u macaan badan soo marka cabitaanka waan sii miirayaa kadibna waxyaabaha kale aan ku daraa iyo sida kale aan u sameynaa idin tusinaya asxaabta waa aragteen waan soo miiray intaas qashin ayaa ka soo baxaya marka waxaa la rabaa si fiican inaad u miirtid kadibna cabitaankaaga cabitaan oo fresh oo macaan badan ayuu ku noqonayaa hadda waxaan sameynaa marka cabitaanka sidaas aan u miiray marka cabitaanka aad rabtid isla markaas marka cabaysid baraf inaad ku dartid ayuu noqonayaa baraf badan ku darso qabow zaid markuu noqdo ayuu ku macaan badan cabitaanka in lagu cabo laakiin hadda rabtidna subaxii camal ayaa shiidi kartaa talaajada ay gashanaysa xilliga afurka ayaa cabi kartaa hadda baraf rabin inaad ku dartid laakiin hadda shiidanaysidna xilliga oo maqribka soo dhow markaasna baraf inaad ku dartid ayuu noqonayaa cabitaanka qaboob ee markaas aad cabi kartaa soo waa ka cabitaankeena asxaabta sidaas ayaan u diyaariyay waxaan rajeynaa dhamaantiin inaad ka faa'iideen cabitaankan maanta idin sameeyay cabitaan aad iyo aad u fudud waaye waxaan rajeynaa dhamaantiin inaad ka faa'iideen videogan hadaa ka faa'iideen cabitaanka maanta sidaan u sameeyay videogan like-tiisa sii share gareysii walaalaaga asxaabtaada orkaan ay ka faa'iidaan hadda maanta nagu cusubtidna kusoo dhawaa familka subscribe saar gambaleelkana furo video walbaan soo gelisay dhaqsay kuu soo gaara soo asxaabteeda qaaliga marka waa aragteen cabitaanka sidaan u diyaariyay baradhahan waa aragteen sidaan u sameeyay baradha aad iyo aad u macaan badan waayo bisha ramadaanka cafur ahaan u samaysan kartiin oo aad iyo aadna idin cajibi doona insha Allah hadduu ilaahna gaarsiiyo marka cabitaankeena sidaas iyo diyaar ku noqda soo marka asxaabteeda qaaliga ay hab dhamaantiin inaan ka faa'iideen videogan ay hab badinkan inaa baroobay doontiin labada recipe maanta idin soo galay videogan hadaa ka heshin marka videogan like saar sii share gareysii walaalaaga asxaabtaada arkaan in ka faa'iidaan hadaa nagu cusubtidna kusoo dhawa subscribe saar gambaleelkana furo video walbaan soo gelisay dhaqsay ku soo gaaraan soo asxaabteeda qaaliga marka videogeena maanta intaas ayuu ahay until then insha Allah next video is maqli doona with new recipe dhamaantiin qeyr badan idin dhaaf adduunka meel walba ka joogtaan and as always ducada igu xasuusta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.